miyaha golaha shacabka ay wafdi u hogaaminayo ayaa dalka dib ugu soo laabtay kadib safaro ay ku tageen dalalka Jordan iyo Turkiga sidoo ku waramay wariyahana Ibrahim Gudleysaaq. gudoomiyaha golaha shacabka ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo wafdi uu hogaaminayo oo maanta dalka dib ugu soo laabtay waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ku soo dhaweeyay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka Mudane Mahad Cabdulla Cawad iyo xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. gudoomiyaha golaha shacabka ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa safaro shaqo ku soo kala bixiyay wadamada Turkiga iyo Jordan waxaana dalka Jordan caasimadiisa Amman uu uga soo qayb galay shirkii 29aad ee midowga baarlamaanada Carabta oo horaantii bishan dhacay. sidoo kale dalka Turkiga oo kamid ahaa wadamadii uu tagay ayuu kulamo kula soo qaatay madax ka tirsan wadankaasi. Ibrahim Gudle Isxaaq, raadiyaha telefishinka qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.